maanta waxaynu halkan isugu nimi inaynu dib u eegid ku sameeyno sanadkii tagay ee 2020ka wixii wasaaradda u qabsoomay iyo sanadka 2020ka waxaynu qorshaysan inaynu qabanno runaantii wasaaradda hawlaha guud waxay mas'uul uga tahay ama mandate-ka qaranka ay tahay inay u fuliso waxa kamid ah nashqadeynta iyo horumarinta magaalooyinka diyaarinta xafiisyo ay waajibaadkooda ku gutaan hay'adaha dawladda labada area ee runtii ugu muhiimsan sanadkeenu soo dhaafnay aynu aad uga shaqeynay kuwaas baa kamid ah waxa kale aynu sameynay diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee qaranka sida aad la wada socotaan in qorshe la yeeshaa waxay muhiim u tahay in aad qiimeyn karto wixii aad qabatay halkii aad ka timid halka aad joogto maanta iyo halka aynu socono qorshuhu wuxuu inaga caawinayaa in qof walba lagu la xisaabtamo waajibaadkiisa inta aan isla xisaabtan la gaarin waxa muhiim ah in qof walba mas'uuliyadiisa iyo waxa laga filayo inuu qabto uu ogaado isla markaana uu qayb ka ahaado shirkani 3 cisho kadib markuu inoo dhamaado waxaan ku hanweynahay in uu inoo dhamaado qorshihii aynu ku shaqeyn doonay sanadka 2021ka kaas oo aynu publish gareyn doono isla markaana aynu la wadaagi doono shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaga ku dhowdo ay nagu qiimeyn doonaan marka uu sanadkani dhamaado qorshihi aynu dhiganay miyuu inoo qabsoomay wixii aan qabsoominna maxay u qabsoomi waayay sida aad la socotaan wasaaradda walba miisaaniyad bay leedahay oo kale internetka dad gashan wad ka helaysaan waxa weeye wasaaradda walba qoondadii miisaaniyadeeda halka ay ku jirtaa qorshuhuna sidaas la mid ah ayuu muhiim u yahay isagana waxa weeye in dadka la wadaago marka inagu miisaaniyadeena iyo qorshaheena iswaafajinayna wixii aynu qaban lahayn inaynu diyaarino isla markaana aynu si joogto ah aynu u eegno 3 biloodba hal mar sidoo kalena marka uu sanadku dhamaado hal mar aynu eegno maxaa sanadkii inoo qabsoomay haddii aan si korkaxaadis ah aan u yara taabto sanadkii tagay ee 2020 shaqooyinkii ugu waaweynaa ee inoo qabsoomay waxa kamid ah inaynu u sameeynay magaalada Ceerigaabo master plan dhameystiran oo hadda inoo barsan gareynaya agaasimaha waaxda Luumi sidoo kale wasaaradda hawlaha guud runtii 3 sano ugu dambeeyay waxay aad uga hawl gashay inay horumariso dhammaanba magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wasaaraddu qorshe u sameysay magaalada Wajaale Gabiley Laascaanood iyo Ceerigaabo muddooyinka aynu fulinayno qorshayaasha waxyaabo badan ayaynu ka baranay run ahaantii qorshe walba uu ka casrisanaa ama waa ka horumarsanaa kii ka horeeyay tusaale ahaan markii Gabiley loo sameynayay qorshaha waxaynu isticmaalnay differential GPS oo runtii aad inooga caawiyay in cabirka wadooyinka iyo wadooyinka inta isku jiraanba ay saxsanaadaan sidoo kale waxaynu diyaarinay urban profile-da magaalooyinka Gabiley Laascaanood Ceerigaabo iyo Boorama qudheeda oo sanadkan 2021 aynu ka shaqeynayno urban profile-kaas marka waa book dhameystiran oo inoo sheegay magaalada population-keeda waxa weeye service-ka adeegyada hadda jira si aynu halka baseline uga qaadano aynu ka dhaqaaqayno iyo inta aynu gaari karno sanadka dabayaaqadiisa waxyaabaha kale ee wasaaradda u qabsoomay waxa kamid ah sida aad la socotaan dawladaha hoose ee magaalooyinku iyaga ayaa qorsheynta iyo qaybinta ka shaqeynayay muddooyinkii ugu dambeeyay magaaladu iyadoo aan lahayn master plan haddii qorshe loo sameeyo waxa ka yimaada qaladaad badan oo run ahaantii maanta aynu wada aragno wadooyinka oo aan lahayn darajooyinkii kala duwanaa ee loo sameeyo wadooyin 15 mitir ah oo moodo in magaalo walba loogu talagalay residential area ama meelo deganaansho oo meelihii commercial-ka ah iyo industrial zone-kii aan tixgelin loogu sameyn taas marka ay wasaaradda hawlaha guud ogaatay waxay isugu yeedhay guddida nashqadeynta qaranka oo 8 wasiir ka kooban waxay soo saareen directive ah in aan dawladaha hoose wax qorsheyna aanay sameyn karin
ilaa magaalo walba loo helayo master plan dhammaystiran oo wasaaradda hawlaha guud ay fuliso taasina runtii si fiican ayay inoogu qabsoontay waxyaabaha kale ee sanadkan inoo qabsoomay waxaa ka mid ah dhammaanba dhismayaasha ay dawladdu ka fulinayso miisaaniyaddeeda in la soo mariyo wasaaradda hawlaha guud oo ay samayso designkii iyo qiimayntii labadiiba isla markaana contractorka ku soo guulaysta marka guddida qandarasaadka loo gudbiyo in ay la gasho supervision agreement oo ah in wasaaraddu ay ku hubiso tayada dhismaha iyo shaqadii loo diray inuu sidiisii u qabsoomay taasina waxa weeye shaqo si fiican hadda wasaaradda uga socota oo 100% si fiican u hirgashay wasaaradda hawlaha guud 2018 waxay dalka oo dhan ka samaysay diiwaangelinta hantida maguurtada sanadkii hadda aynu soo dhaafnay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda hawlaha guud waxay ka wada shaqeeyeen siyaasadda hantida maguurtada oo runtii aad u muhiima siyaasaddaasi golaha wasiiradu way ansixiyeen waana dhaqangal kadib xafiiska xisaabiyaha guud iyo wasaaradda hawlaha guud waxay dib u bilaabeen diiwaangelinta hantida maguurtada oo lagu darayo in la qiimeeyo hantidii markii hore waxaanu diiwaangelinay hantida quraata hadda imika in terms of value ama qiimo ahaan intee ayay hantida jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay inaynu ogaano way sanad walba waxa way hantideeni maxaa ku soo kordhaya oo wixii dee record uu yeesho sanadkii hadda aynu soo dhaafnay shaqadaasi waxay ka socotay degmada Hargeysa oo aanu ku bilownay as a pilot 3 wasaaradood wasaaradda maaliyadda wasaaradda difaaca iyo wasaaradda hawlaha guud insha Allah sanadkan soo socdana waxa ay ka bilaabmi doontaa dhamaanba dugsiyada iyo wasaaradda waxbarashada hantida ay ku leedahay magaalada Hargeysa sida aad la wada socotaan ma jiro construction permit ama marka aad doonayso inaad dhul sharciyeysato ee doonayso inaad file aad dhulkaaga ula soo baxdo haddii aad boora ma joogto processkaad marayso iyo documentka iyo foomam way ka duwan yihiin kuwa gabileyna waxay ka duwan yihiin kuwa Hargeysa marka magaalooyinkeena waaweyn iyo dhamaanba degmooyinkeena magaalo la file ma aha marka doonayso inaad dhul samayso arrinkaas assessment bay wasaaraddu ka samaysay waxaana ogaatay xataa security features koodu inay aad u liitaan marka sanadkan qorshaha waxaynu gali doonaa haddii alla yiraahdo inaynu midayno qaabka loo diiwaan geliyo faylasha iyo sharciyada dhulka oo haddii uu joogo qofka muwaadinkii ceerigaabo iyo haddii uu saylac joogo in faylka dhulka uu yeelanayaa isku wada mid ahaado maanta oo aynu boora ma joogno waxaynu farxad ah inaynu sanadkan ka bilaabi doono hadduu alla qadaro master plan-kii magaalada Boorama sanadba waxaynu koraya aqoon iyo capacity innaga oo tixraacina ama raacina nidaamka hagaha URF waxaynu samayn doonaa baseline assessment magaalada Boorama dadka ku nool intee ayuu leeyahay daahan intee u badan yihiin ma dhalinyarba ma dad waaweyn ba transportation kana sidoo kale waynu gaadiidka jooga intuu leeyahay wadooyin intee leeg buu baahan yahay solid waste management ka ama qashinka magaalada sidee loo maareeyaa sidee xaafadu soo saaraan dawladda hoose sidee u urursaa halkee la geenayaa marka site-ka la geeyo sidee loo maamulaya ama miyaa la gubaya maxaa lagu sameeyaa waxa soo dhan waxay tahay daatooyinka aynu u baahannahay inaynu ururino assessment-ka aynu baseline assessment-ka aynu samayn doono sidoo kale adeegyada haday tahay waxbarashada iskuuladu miyay ku yar yihiin magaalada marka loo eego dhalinyarta ama da'da waxbarashada ku jirta caafimaadka MCH-yada biyaha iyo leydhka iyo garoomada sportsiga ay ku ciyaaraan waxa soo dhan baynu darsi doonaa marka waxaynu soo bixi doonaa 20 sano ama 30 sano ee soo socda markaynu projection-ka sameeyno intee ayuu leekaan doonaa population-ka ama dadka ku noolaan doona magaalada Boorama markaynu taahayna waxaynu saamaxaysaa inaynu master plan ama aynu qorshe u sameeyno magaaladu intay fidi kartaa dadka inta 30 sano ee soo socda imanaya wadooyin intee leeg bay u baahan yihiin